haddii aad ku xidhan tahay channelkayga fadlan subscribe saar oo ku soo bir mahadsanid. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo wafdi hogaaminaya ka mid ah gudoomiyaha golaha guurtida wasiir ka tirsan xukuumaddiisa iyo doctoradna aadan ayaa u kictimay dalkaasi Djibouti oo kaga qayb gali doona wada hadallo u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana warbaahinta ugu warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon isaguna faahfaahin ka bixinaya wuxuu yiri waxaan halkan soo taagay inaan idin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi wafdigaas wuxuu baxayaa dalka Djibouti madaxweynahana waxa ku weheliya gudoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaanka guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan Ismaaciil oo ah la taliye xagga aqoonsi raadiska jamhuuriyadda Soomaaliland wafdigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casumay oo ay soo qaban qaabiyeen dawladda Djibouti iyo dawladda Mareykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dawladda ama dalka Ethiopia wafdigaas waxa la isugu keenayaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ujeedada shirku waa intaas ajandihiisa iyo waxa laga wada hadli doono iyo arrimahaasu de marka la isu tago baa laga wada hadli doonaa waxaan halka kan hadda ka sheegno oo aanu ma jiro insha Allahna waxaanu rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul ku dhamaado